kusoo dhawow Qaraax Tube fadlan subscribe dheh waxaad ka helaysaa macluumaadkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo sheekooyin kale. heshiisyadii ugu dambeeyay ee la sameeyay suuqa kaliibsiga ciyaartooyda, dalabyada la gudbinayo iyo xidigaha suuragalka ah in la wareego. aan ku bilaawno kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa dhameystirtay saxiixa xidiga lagu magacaabo Shadran Shaqiri kaas oo 13.5 milyan ay kaga soo qaateen stock 5 sanadood oo heshiisa ay Liverpool xidigan ka saxiixatay. lambarka 23aad ee kooxda kubadda cagta Reds ayaa sidoo kale xidigan lagu abaalmariyay. Tottenham way ku guuldareysatay inay hesho ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta PSG Adrien Rabiot oo 23 sano jir ah, sababtoo ah Adrien Rabiot ayaa raba inuu ku biiro kooxda Barcelona. Eintracht Frankfurt ayaa dhageysanaysa dalabyada ka soo gaaraya Ante Rebic weeraryahanka xulka qaranka dalka Croatia kaas oo ka tirsan kooxdaasi. Manchester United ayaa dalabkii ugu dambeeyay ka soo gudbisay xidigan, balse lama oga in xidigan ay qaadan doonaan iyo inay iska soo fasaxi doonaan. Man City waxay qorsheeda ku darsatay saxiixa ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta Real Madrid Mateo Kovacic oo Croatian ah. wuxuu doonayaa Guardiola ugu yaraan inuu bedel kaga dhigo Fernandinho. Barcelona ayaa damacsan in Real Madrid ay kula dagaalanto Eden Hazard. dalabay ka gudbiyeen Barcelona xidiga lagu magacaabo Hazard kaas oo u muuqdo inuu yahay dagaal classic ah oo labada kooxood dhexmari doona. Juventus ugu dambeyn waxay xaqiijisay in maalinta Isniinta la soo bandhigi doono Cristiano Ronaldo ayaa maanta ka soo dhamaan doona Madrid, wuxuu aadi doonaa Talyaaniga maalinta berito. Isniintana waa la soo bandhigi doonaa si taageerayaasha ay u arkaan ciyaaryahankan 5 jeer heesta Ballon d'Or-ka. PSG ciyaaryahankeeda Neymar ayaa la doonayaa in heshiis cusub laga saxiixo 50 milyan oo lacagta Euro-ga ah ayuu qaadan doonaa sanadkii haddii heshiiskaasi uu aqbalo. midaasna waxay ka hor istaagaysaa inuu damo xitaa Real Madrid inuu aado. Neymar hadda wuxuu qaataa 37 milyan sanadkii, AS ayaa sidaas weerinaysa. Mauricio Sarri ayaa aqbalay inuu qabto shaqada tababarnimo ee kooxda Chelsea, waxaana caabiye looga dhigi doonaa Frank Zola. 3 ciyaaryahano ayuu hadda doonayaa Mauricio Sarri inuu soo qaato. Arsenal iyo Chelsea ayaa labadoodii weyn kara ciyaaryahanka Croatianka Alexander Golovin, maxaa yeelay xidigan wuxuu rabaa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Juventus. Barcelona waxay doonaysaa inay la soo saxiixato N'Golo Kante oo Chelsea ka tirsan si ay bedel kaga dhigaan Andre Gomes. Sky Sports ayaa sidaas warinaysa. intaas waxay ahaayeen waxyaabihii ugu dambeeyay saacadihii la soo dhaafay ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, heshiisyadii la sameeyay iyo sidoo kale kuwa hadda la filayo inay dhacaan. waad ku mahadsantahay daawashada videogan, fadlan ha ilaabin like iyo share kadibna inaad daado subscribe. mahadsanid.